السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyntii waxaan rabaa inaan ogaadiyo magaaladan Saaxdheerna ku soo dhawaado annagoo shacabkiina reer Khaatumo ciidankan walaalaheena ee lagu tababaray Puntland haddana iyo ku go'aansaday tababarkooda inay uga faa'iideeyaan sidii lagu xoreyn lahaa Khaatumo dhulka Khaatumo. waana ku fogaadinaynaa go'aan xaqana waa qaadateen waxaa idin sugayaana ee laydinka filayaana waa dagaal. cali maraykan wuxuu lahaa xaraga looma baahna. waa run hadda xaragada iyo waxaan jirin in hawada laga dhiso qoladaa qura kuma koobnee bal innaka qudhadeennuna hawada waxaynu ka dhisayno iyo huhaadaynu isu akhriyayno iyo kolley habal la eeday khayalaada badan waxaan u malaynayaa inaydan u imanin. qaadku xaggaasuba midhayn ka yimaada bahalka waa la kala jeceliyaa laygu yidhi qaarkood garow way ka yimaadaan markaasi xagga loo soo diraayo. qaadku xaggaasuba midhayn ku yahay daray xaggaasuna midhay ku jaban yahay. u malayn maayo inaad u timaadeen meeshan in la yidhi halkanaa aad moodaa in waxa la waayey xaggaa laga waayey waayadan wuxuunbaaba laga sheegiyo badanoo meelaha laga waayey. ciidankaas siilaan iyo madaxda ka yahay waxaa lagu bartay waxay haystaanba inay meel tuuteeyaan oo ugu tagaan. hadday taleex u baahan yihiin markaa oo yoolkoodu yahay inay taleex aadaan, hadday holhol rabaan inay holhol aadaan, hadday fiqi fuliye inay fiqi fuliye aadaan, hadday kalshaale ama meygaagle ay aadayaanna waxay hayaan iyo waxay haaban karayaan inay meeshaa isugu geeyaan. oo inaku caqliga ma weyna horta asalkeennaba. habkaa hadday meel walba markay rabaan saacadday doonaan ay aadayaan oo wax allaala waxay leeyihiin ay saarayaan oo inaku intaa ma arki weyn. odaygii yidhi war wiilka tabcee ee yarkii uu yidhi amba waa maqlayaa. war inaku intaa ma maqli weynay, ma arki weynay, ma ka faa'iidaysan weynay taas. dagaalka quba ee hubantiya dagaalka qura ee hubantida ah ee aynu kaga adkaanaynaa muddo gaaban waxa weeye aagga hagoogani kalshaale xaggaa hawdka ilaa nugaal ilaa sanaag. dagaalka haddaynan ka qaadin waktiguna waa inagu dheeraanayaa, khasaaruhuna waa inagu badanayaa, ishaaraankuna waa inagu badanayaa. meelaha loo socdo meesha ugu weyn ee ciidankaa siilaanya uu u socdaa waa magaaladan maanta aan joogno, waa Saaxdheer. laakiin Saaxdheer waa marin lasii marayo. Saaxdheer magaca Khaatumaa lala dagaalamayaa. waxay isleeyihiin kolley haddii halkan aad kaga guulaysataan haddana dib bay isu uruurin magaalo kale ama tuulo kale ama qudhacdan ama hareeri badan oo halkaa ka muuqda yay tegi doonaan. meesha loo socdaa reer buuhoodlo waa buuhoodle. meesha loo socdaa waa buuhoodle. buuhoodle hadday gacanta ku qabtaanna waana ku tala jiraane, hadday gacanta ku qabtaanna waynu firiglayn. laakiin waxaan u malaynayaa waktiguna aad iyo aad buu inoogu dheeraanayaa. waa laynaga shaqaysanayaa. waa hadda waxaynu ka cabannaa gacmo badan baa nagu jira oo buuhoodle si gaara ugu jira. haddii ay ku guulaystaan habka ay u guulaysanayaanna waaba la yaqaan. wax cad weeye. nimankanu niman nuclear engineers ama muxuu ahaa dayaxa aadaya maaha. waroy nimankaa wala buurta saarnaa haddana adhiyaheennu wada daaqaan. maanta yimi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. hambalyo waa idin bogaadinaynaa.
وإذن سود دوينينا وادنقو كالسوني بوحدنا شعبيين إذا مدينة يمام الكين ياد كنت لقليسان وبقولك وبقوله أنا